Somaliland ma haysato aqoonsi weli dunida kama helin aqoonsi caalami ma aha dal la aqoonsan yahay Somaliland waa qaar kamida hadalhaynta ugu badan ee timaada marka laga hadlayo Somaliland haddaba ku soo dhawaada su'aalo iyo jawaabo kooban oo ku taxalluqa Somaliland iyo aqoonsiga dawladnimada iyo jiritaankeeda waxaan kula wadaagi doonaa xogo muhiim ah oo laga yaabo inaadan hore u ogeyn isla markaasina ay muhiim ku yihiin haddaad ka mid tahay daneeyayaasha Somaliland ugu horeyn waa maxay aqoonsi aqoonsigu waa aqbalaadda uu dal aqbalo jiritaanka dal kale waxa la isugu muujiyaa in la isugu safro baasaboorada in la isdhaafsado safaarado in la isweydaarsado diblomaasiyiin iyo in la wada yeesho xidhiidh ganacsi iyo mid maalgashi waa maxay shuruudaha looga baahan yahay inuu dal buuxiyo si loo aqoonsado ama waa maxay shuruudaha ku xidhan aqoonsi uu wadan u baahan yahay la siiyo waxaa jira shuruuc caalami ah oo ka kooban 4 qodob oo looga baahan yahay inay dalalku buuxiyaan si ay u helaan aqoonsi caalami ah afartaasi qodob waxaa lagu go'aamiyay heshiiska loo yaqaano Montevideo Convention oo ka dhacay dalka Uruguay sanadkii 1933 shiray isugu yimaadeen wadamada ku yaala koonfurta iyo waqooyiga Ameerika wuxuuna sharci caalami ah noqday markii 1936 looga codeeyay ururkii dalalka caalamka ku mideysnaayeen ee loo oran jiray League of Nations ee uu bedelay kan hadda shuruucdiisii ku sii shaqeeyay United Nationska ama Jumciyadda Quruumaha ka dhaxaysa loo yaqaano afartan qodob ee ah shuruudaha ku xidhan dal si loo aqoonsadana waxay kala yihiin waa inuu dalkaasi lahaado dad joogto ah oo looga jeedo dad la isla yaqaano oo ku abtirsada dalkaas muhiim aha in qaybo kamid ah dadka dalku aanay ku qanacsanayn dalka balse muhiimadu waa in dadka badidoodu aqbalsan yihiin dalka laba waa in dalkaasi lahaado dhul cayiman oo leh xuduudo caalami ah oo uu jeexay dal la aqoonsan yahay xuduudahaas caalamiga ah muhiim ah in qaybo kamid ah uu dalka la haysto ama ay ka maqan yihiin gacmaha dawladda aqoonsi doonaysa balse muhiimadu waa in xuduudahaasi yihiin kuwa caalami ah oo jira qodobka saddexaad waa dawlad jirta oo leh dastuur iyo shuruuc qoran iyo qodobka afraad oo ah in dalkaasi leeyahay awood uu ku geli karo heshiisyo caalami ah oo uu la galo dalal kale oo waaweyn afartaasi qodob ayaa saldhig u ah aqoonsi uu dal helo haddaba Somaliland ma buuxisay shuruudaha caalamiga ee looga baahan yahay inay buuxiso si loo aqoonsado jawaabtu waa mid fudud haa Somaliland waa ay buuxisay afartaasi shuruudood ee looga baahnaa dhammaantood waxay leedahay muwaadiniin ku abtirsada dhul cayiman oo xuduudihiisa uu jeexay dalka Ingiriiska oo dhigay kala badh xuduudaha dalalka caalamka waxayna Somaliland haysataa dawlad ku shaqeysa dastuur iyo shuruuc qoran waxayna leedahay awood ay dalalka caalamka kula geli karto heshiisyo waaweyn oo waxa jira heshiisyo waaweyn oo ku kacay malaayiin dollar ee Somaliland la gashay dalal waaweyn waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa heshiiska DP World oo berbera ka dhigaya dekada ugu ballaaran geeska Afrika iyo saldhigga military ee Imaaraadka iyo waliba heshiiska ganacsiga saddex soodka ah ee ay qaybta ka tahay berbera corridor ay wada galeen Somaliland Ethiopia iyo Imaaraadku Somaliland saameyn ma ku yeelan karaan haddii dad ka soo jeeda amaba ku abtirsada aanay ogolayn qadiyadeeda sidoo kale haddii aanay Somaliland qaybo kamid ah xuduudaheeda la aqoonsan yahay aanay gacanta ugu jirin dadka ku abtirsada iyo dhulka maqan labaduba wax saameyn ma ku yeelan karaan sumcadda iyo qadiyadda aqoonsi raadiska ee Somaliland jawaabtu waa maya wax saameyn dawladnimada Somaliland iyo qadiyadda aqoonsiga kuma yeelan karto haddii tiro kamid ah dadku aanay ku qanacsanayn muhiimadu waa buuxinta shuruudaha dawladnimo mana jiro dal ay dadkiisu ku qanacsan yihiin 100% dunida oo dhan dalalka ugu waaweyn ee dunida ay kamid yihiin Mareykanka, China, Ruushka, Canada, Turkiga, Ingiriiska iyo dalal kale oo kamid ah kuwa dunida hogaamiya waxa jira gobollo dhan oo doonaya inay ka go'aan ama aan ku qanacsanayn qadiyadda dalalkooda kaliya muhiimadu waa majority-ga iyo waliba buuxinta shuruudaha caalamiga ee dawlad laga rabo Somaliland dunida iyo international community-ga ama hay'adaha caalamiga ay ma leeyihiin cilaaqaad toos ah mise waxa jira wadamo iyo dalal kale ay u soo maraan oo Somaliland adduunyadu si toos ah lama soo xiriiro waxa xaqiiqo ah oo aan indhaha laga qarin karin Somaliland beesha caalamku waxay ula macaamishaa si toos ah oo ka madax bannaan cid kasta
sida hay-adaha caalamiga ah ee ku sugan Somaliland, xidhiidhada dalalka reer galbeedka ee amniga kala shaqeeya meelaha Somaliland wax u soo mariso beesha caalamkuna waxaa ka mid ah sanduuqa SDF ama Somaliland Development Fund oo ay Somaliland si toos ah dalalka waaweyn ee dhaqaalaha ku caawiya wadamada soo koraya uga shubaan qaadhaanka Somaliland ay dowladnimadeeda kaga qayb qaataan. sanduuqaas oo Somaliland aasaasatay 7 sano ka hor. sidoo kale Somaliland ma aqbasho wixii dal kale loo soo maray. haddii aanay Somaliland helin aqoonsi caalami ah ma sii jiri kartaa? haddii ay jiri karto muddo intee leegayay Somaliland aqoonsi la'aan ku sii jiri kartaa? sida ku xusan UN Charterka iyo xeerarka kale caalamiga ahba, dal jiritaankiisu kuma xidhna aqoonsi wadan kala siiyo, balse waxa uu ku xidhan yahay buuxinta shuruudaha dawladnimo ee caalamiga iyo dadka dalkaas oo aqbala jiritaanka dawladnimadooda isla markaasina ilaashada dunidana ka iibiya. Somaliland waxay sii jiri kartaa 100 sano inta dalkeeda iyo dawladeeduba dhisan yihiin, waxayna gaari karaan horumar ka badan ka maanta, waxayna ka horumari karaan dalal la aqoonsan yahay dhinaca awooded iyo mid dhaqaalaba siday haddaba uga amniya xasilnooli badan yihiin wadamo waaweyn oo aqoonsi caalami ah haysta. inta badan